Magacaygu waa Fuuziya Cabdullaahi Garaad, da'daydu waa 21 jir. Waxaa wax ku bartay Muqdisho. Waqtigii inta ugu badan waxaa ku qaatay Muqdisho. Marka ugu horeysay lii sheegay inaan Miss World Soomaaliya aan noqonayo, horta waa rumaysan waaye. Inaan rumeysto waqti ay u qaadatay. Markaan rumaystayna ooyinaaba la dhacayba. Ooyinteeda markaan dhamaystaa hooyo wacay intaan farxad iyo wixii la wadaagay. Kadib waxaa dareemay mas'uuliyad fara badan oo farxad aanan ahayn mid ka weyn inay korkeyga saaran tahay oo kale. In laga baahan yahay wadankeyga inaan matalo sida ugu quruxda badan. Runtii gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ka baxdo aniga waaye. Taas waa saxsan tahay. Gabdho badan oo badanaa waxaa matali jiray Soomaaliya oo qurbaha ku koray, qurbaha ku dhashay. Waa markii ugu horeysay gabar Soomaali ku barbaartay ee jaanis ugu hesho. Waana rajeynaa gabdhaha kale oo Muqdisho joogo goboladaas inteeda badanba inay ayagana jaanis u helaan. Runtii ani farxad ay iga dhigneed. Runtii si fiican aan isku diyaariyay. Dad badan oo waxaa jiro garab igu siiyay. Dad hadeen noqdaan maxaa la international. Garabkeyga dad badan taagan oo dhiirigelinayo. Hadeen noqoto qalabaadkii wax walbo liiga baahnaa aan wadankeyga ku matali lahaa meeshas markaa tago kuley. Qof safar ah sidoo isku diyaariyay wuu yaqaanaa. Si uu ugu qurux badan isku diyaariyay. Ka istaago masraxas weyn. Runtii waxaa jeclaan lahaa wadankeena inuu yahay wadan horumare oo dad kala jaan qaadi karo. Soomaali inay dadka isdhexgali karaan. In dhaqankeena meel dadka dhaqamadooda iyo dhaqankeena inay same yihiin. In si qurux badan dhaqankeena meesha ugu soo bandhiga hadday noqoto diinteena, hadday noqoto dhaqanka Soomaaliyeed, gabdhaha quruxda badan, wiilasheena kama marna. Astaan noola u noqon lahaa ee dadka arkaan. Oo aaday u adag tahay. Laakiin way adag tahay oo kaliya inaa hariyadaada uga hartid maahan. Wax walba samayn kartaa kaliya waxay u baahan tahay dhabar adeeg, kalsooni fara badan, inaad naftaada ku dhiiranaatid. Wax alla wax is dhigi kartid meeshas waa ku gaari kartaa inaad qabatid oo marka hore naftaada aamintid. Safarkeyga hadee maanta gabdho yaryar ay daawanayaan, safarkeyga waxaa jeclaan lahaa inay ka bartaan marka hore naftooda inay aaminaan. Wax walba inay samayn karaan. Dumar iyo rag ma ku dhahay dumarkii ragga xuquuqdu way siman yihiin, laakiin wuxuu nin qabtay qof dumar oo gabar way qaban kartaa. Hadaa naftaada aamintid, diintaada aaminsan tahay, iimaankaaga uu kaamil u yahay, wax walba waa samayn kartaa. Waxaa dhihi lahaa hadee riyadaada tahay kaliya jabin, kaliya u dhabar adeeg, kaliya raac leh. Insha Allah aduu taagan arkay. Anaana tusaale nool u ehbo.